Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا qiimaha leh waad salaamaya waa ama muusoo heliya maanta waxaan qaadanayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa amana muusoo heliya maanta waxaan qaadanayaa talaalka oo COVID-19 qaybta koowaad ayaan qaadanayaa waana soo qaatay already fiidiyaha markaan qaadanayo waa idin soo gelin doonaa waa duubay marka insha Allah ilaahay caafimaad iyo daawo noogu daro daawo anaga iskuma hayno ilaahay subxaanahu wa ta'aala daawo noo haayo cudurkana asaa keenay caafimaadkana asaa keena asaa qofka dadka siiya anaga waxba isuguma naalno laakiin Allah subxaanahu wa ta'aala inaan aan saarano talada oo wixii dadaal aan sameeyno ayaana loogu leeyahay marka COVID-19 qaybta koowaad aan qaatay qaybta labaadna 2 toddobaad 3 toddobaad meelahaas ayaa la siinayaa waxaan qaatay kii wadankan lagu sameeyay ayaa aniga la siiyay labadaba waa yaalaan labada nooc oo talaalka hadda ugu caansan waa ka wadankan lagu sameeyay iyo kan kale labadaba waa yaalaan marka hadii alla yiraahdo kii wadankan lagu sameeyay la soo siiyay first dose ugu horeeya ilaahay waa xukunka haya haddii alla daawo iigu daraayana waxaan ilaahay ka baryayaa inuu daawo iigu daro oo macnaha difaac inuu ii noqdo hore coronavirus iigu dhacay waa idinla wadaagay xanuunkii idinla wadaagay waxaan idinla wadaagay maxay ahayd toonay qaabkii xanuunka iigu dhacay waxaan idinla wadaagay astaamihii aan arkay wixii dhan idinla wadaagay marka haddana waxaan idin sheegayaa in la talaalka qaybta hore qaybta dambana aan qaadan doono haddii ilaahay yiraaho intaasaan kusoo gabagabaynayaa idinkana intii talaalka qaadata ilaahay difaaca ugu daro ilaahay baa wax difaaci kara wax kale wax difaaci kara male laakiin iyadoo qadarta eeba aaminsana haddana lagaa rabaa inaad dadaal la timaado marka wax badan ma idin la sii hadli karo baabuurkii aan raaci lahaayaa ee diyaarah oon raacayaa insha Allah hadhow waa idin soo boosti garaynayaa markii aan talaalka qaadanayo videoga ahaa inta xanuunsan allaha caafiyo asku soo ducayno inta caafimaad qabtana caafimaadka allaha u siyaadiyo inta maanta dhibaato si kala ay haysana ilaahay maaragtay dhibaatada ha ka dulqaado inta nugulna allaha badbaadiyo oo dadku waa kala nugul yahay qofka markuu xanuun underlying qabo oo underlying illness markuu qabo oo xanuuno kale oo qabo iyo marka kale isku mid ma aha marka inta kalena allaha badbaadiyo inta liidata oo jilicsan ilaahay maaragtay ha badbaadiyo inta dhibana allaha ka qaada dhibka inta gaajoon ilaahay cuntaha siiyo oo maanta qabow fara badan baa jira caloosha ha u buuxiyo qaasatan Yurub iyo North America waa kaas hello, assalamu alaikum. I'm taking COVID-19 first dose today. Maanta waxaan qaadanayaa qaybta koowaad ee COVID-19 marka saas ogaada idinkana waxaa idinku wacyi gelinayaa inaad qaadataan ood fursadda ka faa'iidaysataan waxa waa xanuun ilaahay yaa keena ilaahay yaa qaada